gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Abduqaadir Shariif Sheekhuna Maye oo tan iyo markii uu baneeyay xafiiska madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed Mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan ahaa siyaha xilka madaxweynaha ayaa maanta xilkii madaxweynenimo si toos ah ugu wareejiyay madaxweynaha cusub ee maamulka koonfur galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen. munaasabada xil wareejinta oo ka dhacday gudaha xarunta aqalka madaxtooyada ku meel gaarka magaalada Baydhabo waxaa goobjoog ahaa wasiiro, xildhibaano, odayaal dhaqameedyo iyo siyaasiyiin. ugu horeyn gudoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed Abduqaadir Shariif Sheekhuna Maye oo wareejiyay xilka madaxweynenimo oo sida ku meel gaarka u hayay oo goobta ka hadlay ayaa si gaar ah ugu mahadnaqay mas'uuliyiinta ay isla soo shaqeeyeen sida guddigii doorashada oo uu sheegay in howlo fara badan ay u dhabar adeegeen iyo dhammaan mas'uuliyiinta labada gole ee dawladda. saaka waxaa sharaf noo ah inaad nagala soo qayb gashaan munaasabadan xil wareejinta ah oo taladii xilkii iyo awoodihii madaxweynahaba aan si rasmi ah aan ugu wareejin doono madaxweynaha la doortay Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed. sharafay noo tahay inaad nagala soo qayb gashaan, nagu maamuustaan, goobjoog iyo markhaatina aad ka ahaataan insha allah. waxaan rajaynayaa insha allah madaxweynaha ilaahay aan uga baryayaa in uu u fududeeyo xilkaas adag aad u doorateen, inuu u fududeeyo. annaguna mas-uuliyiin shacab nooc walbaan ahaano inaan diyaar u ahaano boqolkiiba boqol madaxweynaha inaan taageerno, la dhinac istaago, lala shaqeeyo si shaqadiisa iyo waajibaadkiisa ay ugu fududaadaan. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo ka hadlay munaasabada xil wareejinta isla markaasina xafiiska si toos ah ula wareegay maanta ayaa ka hadlay goobta isagoo u mahadceliyay gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed Soomaaliya iyo labadiisa ku xigeen iyo dhammaan mas'uuliyiinta labada gole ee dawladda. waxaana uu sheegay madaxweynuhu in bulshada reer koonfur galbeed Soomaaliya uu ku hogaamin doono cadaalad iyo sinaan. uma baahno wax badan in la sheego. mas'uuliyadan nagula wareejiyay sidii loogu wareejiyay iyo sidii looga soo shaqeeyay intaba inaan ka mahad celino oo ciddii shaqadii soo qabatay waqtigii dheeraa loo mahad celiyo. annagana mas'uuliyadan nagula wareejiyay aan ilaahay warsano inuu noo fududeeyo uusan nagu ceebeynin. Siraaj Shaysa, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Baydhabo.